halkan waxaan isugu nimi gabadh walaasheen oo muxsinada ayaa dhul halkan ka bixisay 6 balooda waxay ugu tala gashay in masjid iyo malcaamad laga dhiso marka dhulka waqaf ay u bixisay in masaajid malcaamad laga sameeyo marka waxa weeyaan waxaan codsanaynaa maadaama aanu nahay dadkii deegaanka iyo bulshadii ereyadan ka dhaweyd waxaan codsanaynaa dadka aanu soo booqanay oo dadkan maanta xaafadan ku nool oo dadka hadan yarta ah waxa weeyaan baahi masaajid iyo malcaamadeed u baahan caruurtooduna sawirku yar qabo caruurtooduna adiga arkay inay meelaha iska marmarayaan aan waxbarasho iyo aan waxba jirin marka waxaan codsanaynaa dadka muxsiniinta inantii muxsanada ahayd dhulka bixisay allay ilaahay iyadii waalidkeedaba jannada ha ugu bushaareeyo marka aad baan ugu soo ducaynaa iyadana dhammaan muslimiintana aad baan ugu ducaynaynaa wax walba oo la qabto waxa ugu fadliga badan waa baytullah arladan arkaysid qoomka arkaysan waxay ku taagan tahayba waa baytullah guri ilaahay meel laga waayana de nololba ma taalaba in mudaan meeshan deganahay alif wax maal qof loo dhigana malahan albaqal qof meeshan ku akhrista malahan axaadiista nabiga kaleey salaam meeshan lagu ma akhriyo waana dad ummadana maxamed dad muslimiin dhibaataysan ba halka isku wada timid oo de mashi maqribka wadii dad dhibaataysan ba meeshan ku nool kadib meeshan dadkan waxay degan yihiin muddo 2 bilood ah labada bilood ee halka ay degan yihiin ilaahay waa ku roonyahay wax noloshii asaasiga sidii biyihii malcaamadii hadii ay bayd maayo masaajidkii noloshii asaasigeed way ka maqan tahay waa dadka miyiga ku nool cilada u soo baxay ay duruufuhu halkan keeneen marka ummadda muxsiniinta ee wax bixisa ee hor ilaahay wax u dhiganaysa ee doonaysa inay sadaqati waxaan salaamayaa muslimiinta ay shahaadanaysa intii muslim ah waxaan idinka codsanaynaa markii u horeysa gabadha dhulkana siisay ilaahay if iyo aaqar meesha ku oomanta Allah ka waraabi ilaahay idinkiisa muraadkeeda Allah u sahlo haddana waxaan codsanaynaa madrasada iyo iskuulkii iyo masaajidka nooga muhiimsan meel ku tukano ma haysan ciyaalkii waa kuwa waxbarasho ma haystaan suule aan gal hataa ma haysano dadka koofarta ka yimidaan hay masaakiin baan nahay ilaahay ummadiisa u baahan waxa idinka codsanaynaa gabadhan dhulkana siisay inaa wax caabiyo oo siiyo dhulkii noo dhiso masaajidkii noo dhiso malcamadii noo dhiso ciyaalkii noo daryeelo biyaha raadan ugu dhamay meesha biyihiina aadna daryeeshin dawladda muslimiinta na soo booqatiin dal idii wixii joog ilaahay dartiisi inaan ugu dhaqaalaysiinba doonaynaa la baxday ajri ihsanada Allah ka siiyo waxaan u baahanay masaajidkii malcaamadii waan u baahanahay waxaan u baahanay biyahan aad ugu dhib qabnaa hadana masaajidkii malcaamadii ilaahay gabar bixiso dhulkii ilaahay u soo saqaray imikana biyihii baan aad ugu baahanahay wali dadka muxsiniinta waxaan ka codsanaynaa biyaha inay noo soo dhuftaan nagama foga biyaha meel dhow bas taagay ama baad dhammaan dadka muxsiniinta ah ummadda islaamka dhammaan gabadhii muxsinada ahayd ee dhulkan ilaahay dartii ula baxday iyadana horta kulli ilaahay agtiisa fadilada ilaahay agtiisa jazaa'ida ka helaysa anagana ducaan u hayna insha Allah ducada iyada Allah waa aqbalo dadka kale muxsiniintana waxaan doonaynaa maanta meeshan ay degan yihiin 120 ka qoys ilaa muddadii aan soo degnay ilaa hadda xaafadayada aadan kama yeero saas darteed dadka muslimiinta ah ee na maqlaya waxaan ka codsanaynaa inay meesha dhulka la baneeyay caruurtan ay u dayacan yihiin malcamad ay helaan waxa ugu dambeysay markii aan xaafadayeegii ka soo baxnay marka caruurtii waxbarasho la'aan bay naga yihiin masjid lagu cibaadaystana ilaa ay hadeertan awood aan ku banaysana waan weynay marka in wa tacaawanu cala albirri wattaqwa wa la tacaawanu cala al-ithmi